runtii shaqaqadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku aadinayd ciyaartooydii KJS ka timid sida loola dhaqmay horta waan cambaareynayna waa arin aad u xun waa arin aan wanaagsaneyn taas oo runtii arin aad iyo aad leen ku xumaada hayti arin haana nagatiin hayti marka sidii oo dhanba cudur daar mile arintaas dhiidi ma dhiidina bilihini laakiin se hay'adoogi ka shaqo lahaaya kulli lu kala xisaabtama doona jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa si adag uga hadlay dhibaatadii dhawaan ka soo gaartay ciyaartooyda maamulka Koonfur Galbeed kadib ciyaartii dhexmartay iyaga iyo maamul goboleedka Galmudug jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in arintaasi ay tahay arin aad looga xumaado runtii Shabelle TV ee deedan mahadsantiin waraysigan ama kelimadan kooban oo asin runtii ogaadahay tan ee ka mahadsantiin marka koowaad anoo magaagay Xasan Idan Xasan gudoomiyaha jaaliyada Koonfur Galbeed ka metela wadanka Koonfur Afrika may inta ku ambaaray faday runtii qalaasihii ama kale ahayna rabshadii leenjeysidii kooxdii Koonfur Galbeed metelaasi magaalada Muqdisho taas oo runtii arin aad iyo aad leen ku xumaada hayti arin haana nagatiin hayti marka sidii oo dhanba cudur daar mile arintaas dhiidi ma dhiidina bilihini laakiin se hay'adoogi ka shaqo lahaaya kulli lu kala xisaabtama doona xilwaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka metela walaha shacabkana kulli ku hadaleen ilaahay khayrsi aan marka gudoomiyaha jaaliyada Koonfur Galbeed South Africa may sheegay ni oo runtii arintaas way cambaarayaan waana cambaarayaan ku jirna cambaarayaan may kale xadhawayaan oo taageersanaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen go'aankii isu dhaadii oo ku saabsanay in ciyaartooydaas amnisho leen qabsadii oo waan wadankaas si loogu korno la kunagi eedeedan ka mahadsanyiin maamulka Koonfur Galbeed arintaas way eed aan ka taageeraan eedeedan mahadsantiin wabillahi tawfiiq anuu magacaygu yahay Cabdiraxmaan Bishaar Aadan waxaan ahay afayeenka jaaliyada Digli Mirfle South West State ee dalkan Koonfur Afrika runtii shaqaqadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo ku aadinayd ciyaartooydii KJS ka timid sida loola dhaqmay horta waan cambaareynayna waa arin aad u xun waa arin aan wanaagsaneyn maamulka ka jira magaalada Muqdisho waxaad moodaa inuu ka gaabiyo arrimihii marka sidaas daraadeed go'aanka uu qaaday madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen waa ku taageersanahay haddii aan nahay jaaliyadii KJS madaxdeedii ee dalkan Koonfur Afrika waa ku taageersanahay go'aankaas waxaana leenahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waxaan codsanaynaa haddii ciyaar la ciyaarayo in magaalada Baydhabo la isugu yimaado billahi tawfiiq laha macnaha go'aankiisa ka ahaatan eedaasi ka taageersana marka meeshan laha macnaha insha Allah macnaha guul iyo gobnimo sideeda macnaha dhibaatadana macnaha magaalada laga abuuray walba siin ka dhina eedan ku hungna meel walba una roogna ambaarayana marka meeshan laha macnaha maamulka KJS macnaha meeshan laha walba siin ka dhina eedan ku hungna meel walba una roogno macnaha dalkii dibid meel una roogna ambaarayayna gaar ahaan wadanka South Africa marka meeshan laha macnaha guul waangasan laha insha Allah kulli taba macnaha film la ray macnaha filanka ka tusay ma fiiriga malku ugna marka meeshan laha macnaha insha Allah macnaha hormar waangasan laha iska talada hadii kadib macnaha sanad walba ku feelay macnaha in god kooleysin ku qaniina macnaha magaalada sidiisba alaag alma ka feelay may ka feelay in macnaha fiil muuji hor dareera macnaha marka meeshan laha macnaha boqolkiiba 40 salaam Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabelle magaalada Johannesburg